والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا دمانتين بهذا ميديها وأن السلام يا وأردكم سنتين أنا الذين يعني أقبشنا النوت معدان runtii ma jeclayn inaan waxyaabaha aad u hooseeya ka jawaabno laakiin hadday beentu lagu celceliyo way rumowdaa waxaan doonaynay imika barnaamij ka baxa TV-gan Home Cable TV oo la yiraahdo barnaamijka good governance amba maamulada wanaaga laakiin aan isleeyahay waa barnaamijka aan u bixin lahaa barnaamijka propagandada iyo beenta Somaliland ayaan jeclahay inaan dhowr kalmadood ka niraahno runtii qofka barnaamij diyaarinaya inta badan waa researcher-kuna waxa fiican wuxuu diyaarinayo inuu xog iyo xaqiiq facts and figures ummadda maaragtay uu soo bandhigo waxaan moodaa barnaamij muddo soo socday weeyaan horta waxaan ka cudur daaranaynaa in barnaamij aad u hooseeyo noocaas oo kale inaan ka jawaabno laakiin haddana shacbi weynaha Somaliland si aan macnihii aan majarahooga looga celinin baan jeclaysanay inaan dhowr kalmadood oo ka nidhaahno horta waxaa ka muuqata barnaamijka aqoon darro maamul iyo aqoon darro xagga shuruucda dalka iyo hay'adaha dawladda structure-kooga iyo nidaamkoogaba waxaa kaloo ka muuqata aqoon darro xagga mashaariicda saddexda aqoon darro aynu jeclahay marka hore inaan saxno aqoon darro maamul baa ka muuqata oo marka aad doonayso inaad institution wax ka sheegto waxaa fiican inaad institutionkiisa iyo hay'adihiisa iyo shaqaalihiisa iyo wixiisaba amba si fiican aad uga hadasho amba aanad gowrin aad maaragtay si ballaaran aad uga hadasho waxaan jeclahay in wasaaraddan oon habeen hore ka arkayay barnaamijka iyo xalayba inaan saxo horta sida uu sheegay wasaaraddu waa wasaarad cusub oo wasaaradii cusub ay qaranka lagu soo kordhiyay wasaaraddani waa wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka wasaaraddan shaqaalaha wasaaraddu sida uu sheegay waxa weeyaan waa qayb ka tirsan wasaaradda kalluumaysiga waxaa jira waaxo inta badan cross cutter ay wasaaraddu wadaagaan sida admin and finance oo kale iyo qorsheynta oo kale laakiin wasaaraddu lama wareegin kalluumaysiga shaqaale kalluumaysiga waxay la wareegtay shaqaalihii gaadiidka waaxda gaadiidka oo laba laab ama saddex laab ka badnaa wasaaradda kalluumaysiga laba waaxood baa laga wareegay wasaaradduna waa 5 waaxood waxa kaloo hoos yimaada hay'adda horumarinta wadooyinka RDA shaqaalaha wasaaraddu wax ku dhawaad waa 420 shaqaalaha waxaan sidnaa wasaaraddan waa wasaaradda kaliya laba saddex wasaaradood ma ka shaqaalo badan wasaaradda caafimaadka ta waxbarashada iyo maaliyadda shaqaalahaas waa shaqaale xirfad leh marka horta waxaan doonayaa inaan saxo qodobkaas maamul aqoon darradu inay ka haysatay qodobka labaad waa xeerarka dalka iyo shuruucda iyo dhismaha laamaha dawladda waxaa ka muuqatay inankaasi ma fiicnayn qof noocaas oo kale ah nin baa wuxuu yidhi hebel waa buug sitay inankaa waxaan u malayn inuu haadee waa buug sitay uun waxaa jira xeerka maamulka gobollada degmooyinka xeer 23 iyo xeer 56 2016 xeerka wadamarista iyo xeer nidaamyaha 01 2018 xeerka wasaaradaha iyo hay'adaha dawladdu intuba waxay sameeyaan wax la yiraahdo segregation of power wasaaradda iyo dawladaha hoose waxbay ka mas'uul yihiin xadna way kala leeyihiin wasaaraddeedu waxay ka mas'uuliyaddeedu wax ka bilaabantaa waxay ka mas'uultay waa highwayska iyo wadooyinka dibadda laakiin waxa magaalada gudaheega iyo bus stationada iyo waxa ku shaqo leh dawladaha hoose wasaaraddu kama shaqeyso bus station iyo kala xadeynta basaska iyo tagaasida iyo marka waxaad moodaa sida wasaaradda iyo mas'uuliyaadkeegu si cad wax ugu qoran yihiin xeer nidaamyaha madaxweynaha xeer 2018 qodobkiisa 25aad oo ka kooban 13 farqadood marka waxaan jeclaan lahaa isagoo sheegay maamul wanaag
uu sheegay inuu wanaajiyo inuu shuruucdii dalka iyo xeerarkii dalka aanu aqoon tiro badan u baahsanayna ka hayso marka waxay ceeb ku tahay ay nusqaan ku tahay tvda ugu weynaa Somaliland oo kale aynu barnaamij noocaas oo kale ah oo aan edit karin inuu ummadda ku sii daayo waxaa kaloo dhibaato ka haysatay mashaariicda dalka aqoon uma haysanayna kaasi xogna kama haynin home cable TV maanta arkiifyadiis dhammaan waxaan ka hadlayo uu wada kaydsan yihiin kaydkiisu way ku wada jiraan Soomaalida waxay tahay xalaal iftiin baa la qashaa annagu faanina mayno laakiin waxay wax qoran waana yaalaan waxaa jira buugga ay wasaaraddu soo saartay 2018 waa buuggaas home cable TV laftiisa koob ka mid ah oo siinay arkiifyadiisa ay taallaa wasaaraddu waxay qabatay waa 3 mashruuc ayay qabatay 3 mashruuc halkaas ku qoran yihiin sidoo kale waa kan buuggan labaad buugga waxa soo saartay wasaaradda qorsheynta qaranka waa National Progress Report wasaaraddu waxay ku qabatay page number ku leedahay isaguna waa yaala hadduu baahnaan lahaa hadduu research sameeynayo waxaa kaloo jira buugay soo koobtay xukuumaddu oo la yiraahdo waxqabadka 2018 wasaaraddu ay section ku leedahay isla markaas 3 mashruuc way ku jiraan mashaariicda ugu waaweyn ay wasaaraddu qabatay ee ugu ballaaran waxaa ka mid ah waad ogtihiin mashruuca wadada gobolada Sool ee gobolada Sanaag iyo Togdheer ayaa ka mid ah oo sanadkii 2018 wasaaraddu ay dhistay 60 kilomitir waxaan doonayaa inaan caddeeyo aqoon darrada xagga mashaariicda ka haysata inankaasi fasalka iyo wadada wax isku haystaa inay isku kus yihiin wax la dhiso waxa ugu qaalisan waxa la yiraahdo infrastructure oo wadooyinka airportada iyo dekedaha waxa laga yaabaa halka kilomitir inuu 1 milyan noqdo 1 milyan inuu noqdo ayaa laga yaabaa imka mashruuca Hargeysa bypass oo la bilgeliyay oo 22 kilomitir shirkadda ugu horeysay 10 milyan bay soo jeedisay budgetka wasaaradda ugu jiray sanadkii hore iyo hay'adda wadooyinkana wuxuu ahaa waxa ahayd 4 milyan waxa kaloo nasiib darro ah 2018 in ka badan 280 kilomitir oo wadooyina oo inta u dhaxaysa waxaas waxay ku wada qoran yihiin buugaagtaasi ku qoran yihiin 280 kilomitir oo u dhaxaysa waxa dayactir lagu sameeyay inta u dhaxaysa wadada Hargeysa ilaa Burco 280 kilomitir waxa dayactir lagu sameeyay gobolka Sool Tukarraq waxa laga qabtay 280 kilomitir oo ay duufaanta wax yeelasay wadooyinkii fiil roadiska ahaa marka kulay waxaan jecelahay iyadoo detailida halkan aad keli doonto 3 mashruuc waana nin kasta oo koobigiisa oo sawiran doona marka waxaad jirtaa aqoon darro in ka kaasito wax allaah wax la qabtay ma jirto isagana insha Allah wadayn doona haddaan u soo noqdo miisaaniyadda oo ka hadlay horta waxaan aqoon darro weyn baa ka haysatay wasaaradda structure-ga horaan u sheegay wasaaradda waxa hoos sameeyay hay'adda horumarinta wadooyinka miisaaniyaddii 2018 boqolkiiba 80 miisaaniyaddaas waxay isticmaalaysay hay'adda ee wasaaraddu ma isticmaalayn boqolkiiba 80 waxay isticmaalaysay hay'adda horumarinta wadooyinka oo laaran kan ugu saxano agaasimo guud waa jooga isagoo agaasimo guud 20 ay miisaaniyadda 20 ay dhinka ka isticmaalay 2019 hay'adda horumarinta wadooyinka 4.5 ay isticmaalaysaa waxay isticmaashay waxa harsan 5.5% oo miisaaniyadda kamid ah waxa loogu talagalay mashruuc gobolka Togdheer caasimadiisa Burco oo bariish cusub laga dhisi doono qayb kamid ah imkaan u sii deynay 20% baa wasaaraddu soo hadhay marka hortu waxa fiicnaan lahayd
in marka aad ummadda wax u bandhigayso xog fiican oo ummadda ku qanacda inaan waxaagu noqon ceeb iyo ceebeen barnaamijkan waxaan u arkaynaa un inuu yahay barnaamij inay cid ku dhex jirto oo magarasa ah barnaamij propaganda haddii aan usoo noqdo sanadka 2019ka mashaariicda imika gacanta lagu hayo ee infrastructureka waa ilaa 7 mashruuc waxaad moodaa inankaasi Somaliland inuu yaqaano wixii Hargeysa galbeed ka xiga Hargeysa galbeedkayga ha sheegay ma wuxuu iloobay mashruucan weyn ee ka socda gobolka awdal riishka weyn la dhisayo riishka weyn Hamuud inuu ku daray haddii wax kale galbeedkuna haduu sheegayo wala galbeedku waxa si mala Hargeysa galbeedkaygu buu yaqaana Somaliland inuu ku daray hayd waxyaabaha kale cajiibka ah مشروع جاي سدة هايدو جاي سدة نجا عاونيسو هرجيسة كلابايد مو إيجين مو درسين دور شهر وانكو علينا دولة بقول كيف طبعا كم ده وأفر مليون مشروع عسل لعك أفر بقول كنا $1 وميزانية دي ده كانوا قرنا سب بقول كيف بس سجال يعني قدرنا بقول كيف سجال ميزانية ده كانوا قرنا بقول كيف طنا كانوا قرنا سب مشروع يلا قدرنا waxyaabaha kale cajiibka ah mala 2 bilood ka hor dalka uu ka maqnaay bil ka hor hay'adda horumarinta wadooyinka waxa loo siibay qalab fara badan qalabkaas ku kacay ilaa $700,000 marka la isku daro tirada guud sanadka loo siibiyay sanadkan qura hadda ma sanadkii 2018 sanadkan 2019 ka 25% ka mid ah miisaaniyadeedii in ku dhow waxa lagu soo bixiy qalab ay ka mid tahay agafiyo graderro bulldozers booyado iskarogooyin marka runtii waxaan anagu marka doonaynaa inta inaan iftiimino waxaan ka codsanaynaa TV-ga maamulkiisa iyo madaxdiisaba inay raali gelin 14 minute intii ay hadlayeen lamida ay nasiyaan hadday bixin waayaan annagu isxaqaaqan mayno TV-na riyan mayno dalku wuxuu leeyahay sidoo sheegay wax jira cadaalad ba shaqeysay kiiskayga isagoo caadi waxaan u gudbin doonaa maxkamadda iyadoo lana xirin way ku dalacamala xarigay waxaan u gudbin doonaa maxkamadda inankaasi isaga markaa wuxuu soo cadeyn doonaa inaan waxba qabanin wuxuu beenin doonaa waxaanu qabanay booran doonaa xog ma jiraan xaqiiqo raadina oo loo diri doonaa marka waxaan jecelahay hadalkayga kooban inaan intaa yar aan u iftiimiyo barnaamijkaasina aan soo xasuus leeyahay wuxuu ceeb ku yahay TV-yada qaranka oo kale in wax noocaas oo kale laga sii daayo waana mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.